Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badanow kusoo dhawaada sheeko kale oo aad u xiiso badan kana mid ah sheekooyinkii aynu ugu talagalnay barashada luuqadda Ingiriiska. Think before you judge. A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call ASAP, changed his clothes and went directly to the surgery below. He found the boy's father pacing in the hall waiting for the doctor. Think before you judge. فكر كهر انت عدم حكمين. A doctor entered the hospital. دكتور ayaa soo galay hospitalka in hurry asaga oo degdegsan. After being called in markii loo wacay for an urgent surgery qalliin degdeg ah. He answered the call waxa uu ka jawaabay wicitaanka ASAP waxaa laga soo gaabiyey as soon as possible sida ugu dhaqsiyaha badan. Changed his clothes dharkiisii ayuu iska bedelay and went directly wuxuuna si toos u aaday to the surgery below qaybta qalliinka. He found waxa uu arkay the boy's father wiilka aabihiis pacing in the hall oo hallka marba dhinac u socda mar halkaan u socda mar halkaas u socda iska dabandeebay macna waiting for the doctor oo dhakhtarka sugaya. On seeing him arkitaanka uu arkay the father aabihii yelled ayaa ku qayliyey, why do you take all this time to come? Sababteed u qaadatay waqtigan oo dhan inaad ku imaatid? macnaha waad soo daad. Don't you know miyaadan ogeyn that my son life in wiilkayga noloshiisu is in danger ay khatar ku jirto? Don't you have miyaadan lahayn any sense of responsibility wax dareen mas'uuliyad mise ku jirin? Sense dareen of responsibility mas'uuliyad wax dareen mas'uuliyad mise ku jirin? The dhakhtarkii smiled waa uu dhoola cadeeyay ansad wuxuu yidhi, I'm sorry waan ka xumahay, I wasn't in the hospital isbitaalka ma aanan joogin, and I came as fast as I could waxaana ku imid sida ugu dhaqsiyaha badneed ee aan awooday. After kadib markii receiving aan helay the call wicitaanka, and now hadda I wish waxaan rajeynayaa you could come down as dejiso so that I can do si aan u samayn karo my work shaqadayda. Come down isdeji What if your son ka waran haddii wiilkaa was in this room oo qolkan ku jiri lahaa right now hadda? Would you come down? Ma isdejin lahayd? If your son haddii wiilkaagu dies oo dhimanayo while waiting for a doctor adiga oo dhakhtar sugaya, then what will you do? maxaad samayn lahayd? Said ayuu yidhi the father aabihii angrily si xarale ayuu yidhi. The doctor smiled dhakhtarka ayaa dhoola cadeeyay again marka la replied wuxuuna ku jawaab celiyey, we will do waxaan samayn doonaa our best effort dadaalkeena ugu wanaagsan, and you should also pray adiguna waad inaad u ducaysaa for your son's healthy life nolol caafimaad qabta wiilkaaga inaad ugu ducaysaa. Giving advices bixinta talooyinku when we are not concerned markii aanan walwalsanayn ama murugeysnayn is so easy aad ayuu fududahay. Murmured the father ayuu aabihii yiri, why is he so arrogant? sababtee sidaas oo dhan uu iskula weyn yahay? He couldn't wait uu sugi waayey some minutes daqiiqado so that I ask si aan u weydiiyo about my son's state wiilkayga xaaladiisa. Commented ayuu yidhi the father aabihii when seen markii uu arkay the nurse kalkaalisadii minutes after daqiiqado kadib the doctor left markuu dhakhtarkii baxay. The nurse answered kalkaalisadii ayaa ku jawaabtay tears coming down her face ayadoo ilmo ay ka socoto wejigeeda. His son died yesterday in a road accident wiilkiisa ayaa shalay ku dhintay
shil wado. His son wiilkiisa died ayaa dhintay yesterday shalay in a road accident, shil wado. He was at the burial, waxa uu joogay xabaasha, when we called him, markii aan u wacnay, for your son's surgery, qalliinka wiilkaaga markii aan ugu wacnay. And now hadda, when he saved your son, markii uu badbaadiyey. And now hadda, when he saved your son's life, markii uu badbaadiyey nolosha wiilkaaga, he left running, waxa uu orday oo u tagay to finish soo dhameeyo his son's burial, xabaasha wiilkiisa. Moral: never judge anyone because you never know how their life is and what they are going through. Moral: dulucda ujeedadu marka waa intaan. Moral macnaheedu waxa weeye kala saaridda xumaha iyo wanaagga, wixii xun iyo wixii wanaagsan la kala saari karo. Marka sheekooyinka noocan oo kale waxa loogu talagalay in xumaanta iyo wanaagga lagu kala saaro. Aynu ogaano, never judge, weligaa ha xukminin, anyone, qofna, because maxaa yeelay you never know, ma ogid, how their life, sida noloshiisu is ay tahay, and what they are going through, iyo wax ay marayaan. Dhakhtarkan xaaladiisu sida ay ahayd iyo waxa uu ku sugan yahay, aabahan ma uusan ogeyn, marka wuu iska xugmiyey inuu iska maalayacni iyo inuusan dan ka lahayn wiilkiisa inuu kusoo daahay, oo markii uu degdegayana uu isla weyne uga tagay ayuu ku xugmiyey. Laakiin sheekadu sidaas way ka duwaneedoo waxa aabaha ku dhacay wax ka sii daran ayaaba ku dhacay dhakhtarka, oo wiilkiisii ayaa dhintay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa sheekadii. Inta aynu iskugu soo laaban doono casharadii iyo barnaamijyadii aynu ugu talagalnay barashada luuqadda Ingiriiska, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.